assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo qufaca anti-cough drugs. Daawooyinka loo isticmaalo waxay ka kooban yihiin daawooyin badan, laakiinse waxaan qaadanaynaa daawooyinka inta badan loo isticmaalo qufaca ee Soomaaliya laga isticmaalo, sida daawooyinka qufaca oo ku badan waddankeena, oo muhiimkana u ah inuu qufaca uu ka yareeyo. Kow, waxaa jirto ayadoo noocyo badan waxaa jirto ayadoo sharoobooyin aad loogu isticmaalaa way jirtaa, ayadoo loo isticmaalayna way jirtaa, oofto ayadoo loo isticmaalayna way jirtaa. Kow, hadda waxaan ku hormarinaynaa ayadoo sharoobo Nikof ayadoo sharoobo ayaa la heli karaa, waxaana loo isticmaalaa daawooyinka qufaca yareeyo, ama haddii qofka dhuunta cuncunayo oo aad u reerixyoonayo in loo isticmaalo daawadaas Nikofka Laba, waxaa jirta Salorox daawo la dhahaa jirto, ayadana waa loo isticmaalaa daawooyinka. Waxay ka mid tahay daawooyinka inta badan loo isticmaalo qufaca ama hergebka, waxyaabahaas inay yareeyaan, ama dhuunta xabeebka ama waxyaabaha wasaqda ee ku jiraan daawooyinka loo isticmaalo waayo. Saddex, waxaa jirto Combicol, waa daawo aad u muhiim badan. Daawadan wax badan ayaan ka hadlaynaa. Daawadan Soomaaliya inta badan waa laga isticmaala, waa daawo aad u active u oo shaqadeedana maasha Allah waxaa loo isticmaalaa hergeb, haddii uu sanka ku xiran yahay, haddii dhuunta ku xiran tahay, haddii aad quficayso, hergebka oo raago kaleeto, waxyaabahaas wuu saaraa. Qandha haddii jirto, hadduu jirka ku xanuunayo, Combicolkaas waa daawo aad u nadiif haddii aan mar kasteeto iska badisana dhibaato ayuu keeni karaa, ma fahantay? Balse ahaan waxaa jirta daawadan Combicolka in loo isticmaalo waxyaabahaas xanuunka oo dabiiciga oo yacni oo soo galeenka oo mar kasteeto maxay ahayto aad fili kartid, ama waxyaabaha bakteeriyada ee wadato ama viruska wadato inuu ka difaaco. Waa Combicol daawada saddexaad, waa mid aad u fiican. Afar, waxaa kaloo jirto Irocof, waa daawo ka mid ah ayadana daawooyinka loo isticmaalo qufaca. Soomaaliya wuu ku yar yahay, balse aan hadda muddooyinkan laguma arag farmashiyooyinka. Shan, waxaa jirto Bronchofen, waa daawo aad u fiican ayadana, waxaa loo isticmaalaa qufaca, waana sharoobo inta badan ku imaataa. Caruurta yararkan waa la sii karaa, dadka waaweynna way isticmaali karaan, balse aan waxay ku xiran tahay dooska iyo garaamka iyo da'da dadka inta u dhexeyso. Waa loo isticmaalaa. Daawadan aad ay muhiim u tahay, caruurtana muhiim u tahay, dadka waaweynna muhiim u tahay, siiba duqowda aad ku jilcan oo da'da ka daba tagtid, oo markuu qufac ay qabtaan ama waxyaabo oo chronic ay ku yihiin oo kale, sida qufac oo kaleeto, inay yacni lagu daaweeyo Bronchofenkan aad u fiican tahay. Lix, waxaa jirta daawo Toslar la dhahayo, waa qayb ka mid ah daawooyinka qufaca loo isticmaalo, balse ahaan waxay ku timaadaa sharoobo inta badan way ku timaadaa. Dadka waaweynna waa la sii karaa, caruurta yarna waa la sii karaa. Sidii aan Bronchofenka u sharaxnoo kaleeto ayay la mid tahay, si la mid ayaa iyadana dosageka iyo garaamka intaba looga isticmaali karaa iyo da'da inta badan. Midda u dambeysa oo ah midda toddobaad, Trimaxi, waa daawo keliya ee caruurta loo soo saaro, waa daawo keliya ee qufaca maanta ee Soomaalida ilmahooda lagu daaweyn karo. waa Trimaxi, waa daawo fiican, waa anti-cough, waa qufac ay ka yareysa ilmaha, wayna ka joojisaa wixii xab ku jiro fiirahana inay soo saarto ayaa loogu talagalay daawadan. Waana si sax ah u shaqeysaa daawadan, maasha Allah, lamana heli karo, daawo aad muhiim u ah waaye. Intaas waxaan kusoo koobaynaa daawooyinkii ku saabsanay qufaca anti-cough drug. Cashirkeena halkaan uu ku egyahay. Wabilaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.